السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Tehran magaalada madaxda Iran walaashay halkaan ay ku xiran tahay waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano marka nala socdo insha Allah magaca walaal Zainab Abdi Magan hooyada magaceed Milko Mahmoud Farah okay xagee ku dhalatay baad ku dhalatay okay aabaha adiga marka aabaha iyo hooyada Soomaaliya ka yimaadeen United Emirates Arab ka hor Soomaa waqtigeeda ma xagee ka yimaadeen mataqaana qabiilkooda soo xarnaa inaan helno dadkaagii maadaama aadan haysan telefoon maadaama aadan haysan wax contact ah walaalaha hal qof telefoonki ma haysan where is your father come from originally wow yes Dhulbahante well, good very nice no Dhulbahante ayaa this is more than enough it is very important for you because that's the only way we can find out your family you do not have a telephone neither of the address not of the contact you don't have any contact so this is how the Somali people they communicate I قبيل كاسانهاي هذا لكن الحمد لله دوافع من البهانتا ولا لك أول شيء جابها في لندن مقعي ليبان عبدي مجن yes ليبان عبدي yes عبدي مجن نور good ديري عدد عبدي مجن نور ديري عدد تمام yes كل كده دي عدد حجر very good you doing very well واحد إيش كتا مركب ولا شيء في عندها سكة على حقوقها حتى نقدر كزوينين حتى المعاونة يا دولة الصومالية يعني كسعودة دولة الصومالية باسبور كاجي يعني إن شاء الله وحنا وجسم التراك dadka riibana ina helno hadda insha Allah dadka aan helinayo ayaa insha Allah gali doonta laakiin condition waa in la helaa dadka waa in la helaa do you know anyone his telephone number can you tell me one of them his telephone number or his name halkan Iran maxaa ku timi no أول مرة waxa la joogay guriga hooyadiis حق مقعي نين إيراني قبل سوما سام كامبيس أنصاري وإيراني حقيقة سكو جورستين دبي مركا دبي مركا سكو جورستين هل كانوا كامل سنة كيس جورستين لبدي يكون يو طبانكي آيات Dubai is when was which year did you arrive in Iran? 2011 July ayatini. July 2011. Fine. Gourmet is when do you divorce him? End of December. End of the year of 2013 وراقات قرنتها December 2013 زمان okay واي fine كبعد مركا between 2013 إلا 2020 كم حاسبينيز who do you live إلما ما يسكر الشين fine حاجة مركا how do you live how do you what do you do for living? I was hostage in the marriage in a very bad condition. Ninka hostage kuwahi? In here, where actually in a very bad condition, where I got violated. Okay. Inside that house. Okay. I divorced. I accepted any settlement and I left to go back looking for jobs in the United Arab Emirates.
waxaan u baahanahay one more time adoon aniga fiirinayn magacaaga ilaa iyo intaad aabba wadi karto iyo hooyo magaceed magacaha Zainab ayo best enough. I think everybody will intaas ayaan waxaan abiir uga nahay gabadhaan waa gabar dhulbaanta waa gabar Soomaaliya ku dhalatay United Emirates Arab ka guursatay 2010kii in Iiraani ah halkaan 2011kii la soo degay waa isfureen runtii 2013kii waa isfureen dhib badan ayaa ka muuqda dhib badan ayay sheeganaysaa waxaan u baahanahay walaalkeed Liibaan iyo ehelkii Zainab inay si degdega insha Allah noola soo xiriiraan teleefanadan ku qoraynaa waxaanu halkan aan Zainab wada joognaa magaalada Tehran Iran booliiska ayay u xiran tahay oo booliis immigrationka annaga markaan u baahanahay marka dadkeedii inaan helno please magaca hal isgaarsiiyo gabadha Soomaalida si aan maaragtay hadhowdii dadka hore maxaabiista aan ugu soo daro oo labada bilood aan caabuqa coronaviruska awgiis aan ugu xayirnayn maxaabiistaasi aan ugu soo daro waxaan u baahanahay dad contact qofka Soomaalinimadeeda iyo waxeeda in loo xaqiijiyo hadhowdii markii la keeno xogaa kondishikeedu ma fiicna qofkii dadka damiin qaadan lahaa situationka waa ogtihiin Soomaaliya marka please appeal weeye programkan hadda duubayno waa appeal si degdeg ah aan uga baahnahay shacabka Soomaaliyeed inay isku gaarsiiyaan si gabadha loo helo fursadan dawladda maantayto maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ka yihiin oo ilaahay fursadan uu ku siiyay oo aniga aan hadda halkaan aan ku imid maxaabiis si aan uga faa'iideyno gabadhii aan uga soo tegin Iran bay ku nooshay xabsi bay ku jirtaa kondishkeedu ma fiicna haddii aan maanta anigu aynan dadkaan soo raacina it will be very difficult for her marka si aan u keeno oo ay noola soo raacdo please ehelkeeda si degdega teleefonkan kusoo qoraya meesha nagala soo xirtay amaba whatsappkayga waxa weeye waa 002526138806 that's my whatsappkayga Iran local numberkayga waxa weeye 00982927873525 fadlan nala soo xiriira insha Allah biidnillah alkariim barnaamijkaas waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan walaashan wax ugu qabanno ehelkoodu waa inay la soo xiriiraan insha Allah biidnillah alkariim aad baan idinku mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Soomaali weyn والبهار